kama dambaysta ahayd ee degmada Boosaaso ay la saxiixato shirkadaha kala ah shirkadda Juba Construction iyo Abaal iyo Jore. shirkadda Juba waa la saxiixanay heshiis ah inay dhisto wadada ka baxda Netco ilaa iyo jidka Sodonka oo dhererkeedu uu dhan yahay 1 kiiloomitir iyo 740 iyo 7 mitir oo ballac ah. shirkadda Abaal aan la saxiixanay iyadana heshiis dhan inay dhisto wado isku xirxir ah oo dhex marta centerka magaalada Boosaaso taas oo dhererkeedu uu dhammaan doono 800 oo mitir iyo sidoo kale inay dayactir ku sameeyso wadadii hore ee Beeldaaja Cabdullaahi. sidoo kale Jore Company Construction ah oo dhismayaasha qaabilsan isagana waxa la saxiixanay heshiis ah inuu dayactir iyo dib habeyn ku sameeyo suuqa yaraha magaalada Boosaaso ee leedahay suuqa Albaash baan isagana heshiiskaas la saxiixanay. aad iyo aad baan u bogaadinayaa dhammaan shirkadaha ku guuleystay qandaraasyadatan oo maanta heshiiska kama dambaysta la saxiixanay. waxaan rajeynayaa oo kula dardaarmayaa in shaqada tayadeeda iyo wanaageeda siiba wadooyinka in la ilaaliyo. annaguna haddii aan dawladda hoose nahayna waxaan yeelan doonaa injineerada iyo injineerada ka socda hay'adaha intaba kormeer iyo dabagal iyo wadada si loogu talagalay iyo wixii aan ku heshiinay inay fuleen iyo in kale baanu ka wada hadli doonaa haddii Allah mar walba kormeer iyo joogteyn ku sameyn doonaa. sidoo kale waxaan ka codsanaynaa halka iyaguna maanta nala jooga gudiyadii ama odayaashii xaafadaha in iyaguna dowrka inta ay ku leeyihiin shaqada ay ka qaataan maadaama waxa kan ay ahayd inta badan lacag deeq ah oo hay'adaha caalamku ama UNGBLG ee ugu deeqeen magaalada Boosaaso. dawladda Puntland oo hogaaminaya madaxweyne Saciid Cabdullaahi Daneyna ee dowrkeeda ku soo dartay 15%. dawladda hoose ama degmada Boosaasana waxay ku dartay 6%. dowrkii community-ga iyo dadka degan xaafadana waa halkaas ka dhinaa. iyaguna waxay rabaan diyaar u yihiin hadda halkan maanta ay u yimaadeen inay dowrka intay leeyihiin ka qaataan oo ah inay waxa weeye wixii caqabado xaafadda ka jira ilaa wixii nadiifina haddii ay noqon lahayd kadhadaha degmadu laamiga ay yeelan doonaan iyadoo loo dhigayo si taxaddar leh oo injineeradu ay go'aanka ugu dambeeyay yeelan doonaan si wadada maadaama ay wada isticmaalkeedu badan yahay meelaha dubinta u baahan ee soo calaamadiyeen injineerada iyadoo mar labaad dib kama dambeyntii hadda la gali doono oo la fiirin doono wadada iyo baaxadeeda iyo inta u jirsanayo iyo saameyn inta leeg ay yeelan doonto. waxyaalahaas oo dhan in community waxa xaafadu ay ka qayb qaataan si mashaariicdan 3 bilood oo loogu talagalay inay kama dambaysta ah inay ku dhamaadaan si aan uga faa'iideysano. anagoo rajeynayna in marka intaas u dhamaato mashaariic kale oo ka waaweyn ee degmadu ay hesho taasna waxay ku xiran tahay sidii hadda quality-ga loo hagaajiyo loona dedejiyo shaqada. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.